السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي إخواني في الله وحين كجرنا بشي إلهي سبحانه وتعالى عمل كلور فينا وحين كجرنا بشي شعبان إخواني ما تتوضي مريسا شن إتمان كمركا لقارنا فضلي كلا صوى أروري النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ورينا وحو نوشي إنه النبي صلى الله عليه وسلم ويري يطلع الله إن الله لا يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه ما عدا اثنين فيغفر لجميع خلقه إلا اثنين مشاح أو لمشرك أو مشاح حديث كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورنيه وعليه يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر الله لجميع خلقه إلا اثنين قاتل نفس أو مشاح marka labada riwaayad buu jiraan ikhwaani marka waxaan doonay xadiiska inaan idin la wadaago 15 shacbaan intaan la gaarin ikhwaani labadan arimood iska ilaaliya insha Allah habeenka waa habeen fadli badan habeenka waa habeen baraka badan habeenka marka waxaan rabaa dhamaanteena inaan ku galno liiska kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala arintan u sameyn doono inaan marka kamid noqono marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaatay inuu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala habeenka leylatan nisf min shacbaan habeenka shacbaan 15 uu marayo habeenka dhexdiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa oo dhan buu soo eega markaasuu Ilaahay cafiya adoomadiisa oo dhan mu'miniinta oo dhan buu Ilaahay cafiya ilaa laba qof ma ahane labadan ficil ama labadan arimood dadka ku sifoowa Ilaahay ma cafiyo kow waa qof walaalkii uurka waxa ugu haya ama qof walaalkii maxay ahayd ama qof mushrik ah oo Ilaahay wax la wadaajiyo haddaad walaalka uurka waxa ugu haysana Ilaahay ku la cafin doono kugu dari maayo haddaad mushrik tahay Ilaahay wax la wadaajisay ama qubuuraha iyo waxaan aan jirin qof ka dawareegaada tahay waxaan Ilaahay ka sugnaanin haddaad ku tilmaanto ogow inaad liiska kuwa la cafin doono laga saari doono marka ikhwaani riwaayad kale Abdullah ibn Umar uu warinaya jiro wuxuu yiri labada qof waxay noqonayaan qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxay ahayd naftii uu diiday in la dilay ama qof maxay ahayd naf Ilaahay uu xarimay dilkeeda qof dilay ama qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa diiday oo walaalkii uurka waxa ugu qabtay marka ikhwaani labada arimood iska ilaaliya imma inaad walaalka uurka waxa ugu qabato ka fogow intaan 15 shacbaan soo gelin cafi walaalka bil kala barakaysan baa soo socota marka ikhwaani dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa kuwa arimaha ka digtoonaada inaad ka mid noqotaan ilaahayna uu ku daro liiska kuwa la cafiyo barakallahu fiikum jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh